qiyaastii 20% shidaalka adduunka iyo gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ah loona yaqaano LNG ayaa caadi ahaan mara marinbiyoodkan, waxaana dagaalku sababay in qiimaha shidaalka caalamku si weyn u kaco. Haddaba waa maxay xaggee ayuuna ku yaallaa marinbiyoodkan, maxayse tahay muhiimadda marinkan? Waxaa dhinaca waqooyi ka xiga Iiraan, halka dhinaca koonfureed ay ka xigaan dalalka Cumaan iyo Isutaga Imaaraadka Carabta. marinbiyoodkan oo qiyaastii 50 kiiloomitir oo ballac ah ka kooban marka laga eego labada af, isla markaana qaybta ugu yar ee marinbiyoodkan ay tahay 33 kiiloomitir, wuxuu isku xiraa gacanka Faris iyo Badweynta Carabta. marinbiyoodkan waa mid ku filan oo qoto dheer si ay u maraan maraakiibta shidaalka ugu waaweyn adduunka, waxaana isticmaala soo saarayaasha ugu waaweyn ee shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee bariga dhexe iyo sidoo kale macaamiishooda. sanadkii 2025 qiyaastii 20 milyan oo fuusto oo shidaal ah iyo alaabooyin shidaal ayaa maalin kasta ka gudbaya marinkan, taasoo u dhiganta ku dhowaad 600 oo bilyan oo ganacsi oo tamar ah sanadkii. shidaalkaas kama yimaado oo keliya Iiraan, balse sidoo kale wuxuu ka yimaadaa dalal kale oo khaliijka ah sida Ciraaq, Kuwait, Qatar, Sacuudi Carabiya iyo Isutaga Imaaraadka Carabta. Strait of Hormuz ma aha oo keliya meel shidaal laga dhoofiyo, balse sidoo kale waa halbowlaha ganacsiga badeecado badan oo muhiim u ah nolosha dadka. qiimaha saliidda iyo gaaska ee adduunka ayaa si aad ah kor ugu kacay, iyadoo ay saameyn ku yeelatay dagaalka iyo xiritaanka marinkan. qiimaha gaaska Yurub ayaa kor u kacay in ka badan 30% kadib markii shirkadda ugu weyn adduunka ee soo saarta gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ah ee Qatar Energy ay sheegtay inay joojisay wax soo saarkeedii. wax soo saarkeedu wuxuu noqday mid muhiim u ah wadamada midowga Yurub kadib markii ay yareeyeen ku tiirsanaantii ay ku qabeen gaaska Ruushka. Qatar ayaa bixisa qiyaastii 5 meelood meel gaaska dareeraha dabiiciga ah ee adduunka. Iiraan waxay u isticmaashaa xiritaanka marinkan si ay cadaadis ugu saarto Mareykanka, Israa'iil iyo dalalka khaliijka. marinka Hormuz waa marin muhiim u ah dhoofinta shidaalka adduunka. xiritaankiisana wuxuu abuurayaa culays caalami ah oo ku qasbaya wadamada kale inay la fariistaan Tehraan ama ay ka fiirsadaan ugu yaraan siyaasadaha ay ku wajahayaan. Iiraan waxay ka faa'iideysan kartaa kor u kaca qiimaha shidaalka caalamka, maadaama gacanka uu dhoofiyo 20% shidaalka iyo gaaska adduunka. qiimayaasha oo kordha waxay kordhin karaan dakhliga Iiraan, gaar ahaan haddii ay sii wado iibinta shidaalka gudaha iyo dibaddaba. Soomaaliya waxay inta badan soo dhoofsataa badeecooyinka shidaalka, kuwaas oo badankood ka yimaada gacankan. xayiraad kastana waxay keeni kartaa koror weyn oo qiimaha shidaalka ah, taasoo iyaduna kordhinaysa qarashka gaadiidka, cuntada iyo alaabaha asaasiga ah. xirnaanshaha marinkan wuxuu ku sababi karaa sicir barar ku yimaada alaabaha iyo dhaqaale burbur soo wajaha dalkan dhaqaalihiisu hooseeyo ee dhaca Geeska Afrika.